yahay kolley sheekadani waa sheeko taxana aad iyo aad u dheer bal insha Allah bal halka waxay ugu soo gudageli doonaa Bartisriga bal Maxamed ku socodaan ku leeyahay saaxiib Bartisriga horta aad iyo aad u naastay Yusuf dhamaan asxaabta ku xiran kanaalkaaga baadada fishiyaala way salaamiin waxaan u leenahay tawadan karin khayr fara badan waan idin rajaynaynaa marka sheekadu waxay maraysay markii inantii adigu ay istaagtay boqorkii iyo wixiina ay u yimaadeen marka boqorkii uu ku yiri inankii uu sadaqa waxa ku yiri faraska soo fuul wayna fanaysananaa fanayna waa marka labada qof ay faraska fuulayaan walaalkeedna ku yiri adigu soo qaad walaasha faraska soo saar inankii adeerka waxana uu diray uu ku yiri waxa aadaa gurigii aad oo guriga u sii gogol cuntana uga samee cunto iyo waxaan u samee adigu inankii uu tagay gurigii buu tagay markii gurigii tagay cidna lama hadlin cuntu sameeyay gurigii baa loo sii goglay boqorkii iyo inankiisana way soo raaceen markay soo raaceen waxay soo raaceen baadigu markii ay guriga ku soo dhawaayeen boqorkii faraska buu joojiyay markuu joojiyay inantiisii ku soo fur inankiina waxa ku reebay inankii seediga waanu ka soo yara dheereeyo wuu soo kaleeyay markuu saabeesha dhexdeeda u yimid wuxuu garaacay siidhigi markuu siidhigi garaacay waxa la isugu yimid geedkii lagu tiri jiray ee shirka markii shirkiisa loo soo fadhiistay baa boqorkii wuxuu yiri waxaan soo kiyeeray ma la garanaya may bay yiraahdeen boqor daadana isugu hayray boqor maanta maxaa soo kordhay marka dadku badda waxay ku hayeen ba maskaxda adigu dagaalkii iyo diladii waxaan talo dagaal bal qaadaya maadaama arkaas waa arin xilliga taagnaa ognaa marka iyagoo geedka fadhiyay shirkaaba waxa halka ka soo muuqday inankii labadii inan dabadna wuxuu yiri labada inan ka soo wixii ma la garanaya dabadna waxay deenkaas waa hebel weynkaas dabadna waxa la yiri inanka kale ma garanaysaa dabadna dadkii markay eegeen waxay yiraahdeen inanka kale inanka kale nin kasta wuxuu yiri ninka waan garanayaa ninkaas iguma cusbay talaabada waan qaanay wax la masanayo la odorasaba markii damaaliyo ninkaas waa hebel sawa bahladiriida halista wankii halista dabadna raggii fadhiyay nin kasta wuxuu xisay tolo maala gacanta hore yeelanaya tolo wax yeelanaysa gacanta dambe tolo adiga ma lagu deynayaaba waa la kala horsaday wagogos nin kasta hoos ka xaraawday nin istaago ka hortagba dabadna waxay ahaataba adigu boqorkii markii ay saahaatay boqorkii baa yiri ninkaas oo la garanay haaso ninka helma aha maxay naga dhaxeeyay beeshooda inayna isbarino waa arintu dawaataadkii markaas buu yiri ninka la socday uu hunguriga galo marka hore aniga iyo ubadkan la horta la kabacdi isaga dil marka hada waa boqorku marka hada sharafka karaamul hada hadal ku yiraahdo waa lagu gooranayo cidi kama dadaaltay wuxuu yiri ninkaasi inanteedii heblaayo baan siiyay waxaanan isagaan aroosaya arooskana caaw dhacaya dhammaantiina sida arooska loo qurxin lahaa laga wada shaqeey de waxay noqotay tala boqorad qofna ka daba hadli maayo waa la yimi markii geedkii uu yimi adigu de kollay ninkaas de wajigu la imanayo de waa la garanaya waa waji adigu de aan qurux badnayn murugaysan waxa baxaya midaba kale adigu wajigaas kollay waji qurux badan ma hadde ninka ragii laayay hebel godobtuna de ma waxa la yahay godobta ama untana kollay de waa shay adigu aadufan adigu meesha wax ka baxay midaba waxay ahaataba markii adigu cabaar la joogay hadana labada bilood adigu dad bay haayeen de isdhalay oo dad bay haayeen adigu de balaayo wax ka shay laakiin de isku abtiya isku ilmaabtiya isku hawareera markuu cabaar joogayba ninkiiba waa la waayay muu baxsana de raggii ay ilmaabtiga haayeen habarwadaaga haayeen dhex galayba oo islaantii heblaaya ka warrama waa tii dhintay ninkeedii islaantii ka warrama heblaayo iyada maxaa adigu ninkiiba raggiiba wada sheekaystaan adigu de ay wax isku haayeen isku mashquuleen oo wixii baa hadana mirro yarba waa la ilaaway de qasadaas waxa ku soo dhamaatay barta labadii beeloodna bartii ka heshiiyeen oo dibay isugu soo koreeno bartiida ka bilaabmay hadana sharaftii iyo karaamadii marka qisadaas waxa la yahay gabadhii marka dib la soo dhaxgalay Soomaa dib la soo dhaxgalayo de labada qof u noqday bada sabab in ay beeshii dib heshiiso wax kasta oo dhacay waa la iska ilaaw waa tahay saaxiibada dad ugu mahadsantahay sida qiimaha badan ee waqtigaaga nagu hortay kullay abwaanku markasta halkan ka soo muuqan doona insha Allah ma markii ugu dambeysay uu ka soo muuqanayo barnaamijkana bartaasna ku soo koobaynaa insha Allah bidnillahi kariim assalamu alaykum wa rahmatullahi